الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Sheekh Xasan Qaliil Jaamac Maxamed oo ah dhakhtar dadka ku daweeya Quraanka Kariimka iyo shareecada diinta Islaamka ayaa xarun cusub oo loogu magac daray Daaru Sixa ka furtay xaafadda Daalo ee magaalada Ceergaabo halkaas oo sheekhu ku daweynayo xaruntaasi xanuunada isha sixirka jinka iyo wixii la xidhiidha sheekhan oo aan xaruntiisa ku booqanay ayaa nooga warbixiyay dadka ilaa hadda ku dawoobay shifadan akhrista quraanka iyo tufta leeyada daweynta jinka iyo sixirka iyo isha jazaakumullahu khayr marka umamka waxa lagu daweynayaa nusuusta sharciga ee soo aroortay ruqyada iyo xadiista nabiga kaleey salaatu wasalaam ee nabiga ka sugnaatay sideen wada ku soo Ilaahay waxa inoo tilmaamay quraanka walaalayaal inuu daweeyay Ilaahna wuxuu leeyahay wa nunzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un rahmatun lil mu'minin quraanku wuxuu yahay dawo saadarteed dadka wax maala kama doonayno adduunyada kama doonayno waxaan maartay meel ka dhiganana kama doonayno waxaan markaa maartay la doonayaa in islaamka Ilaahay tabaaraka wa tacaala quraankii uu dawada ugu tilmaamay in maartay markaa umamka la baro oo loo soo celiyay quraanku uu shifaa u naas u noqdo maartay uu hurgalo islaamka leeyahay maanta caalamka waxa lukan haysta dhibaato aad mushkila maanta meesha soo martaba ama meesha wax ka soo daweyso waxaad arkaysaa bulsho aad u dayacan oo maartay sida jinkii iyo ishii iyo sixirkii iyo subyaanadii iyo wixii la mid ah marka umamkii aad u cadilayay سادرت مرت عدو بدن بين وجود العدو قاسم مركز عندنا نكورت إن شاء الله جزاكم الله خير جزاء. بسم الله أنا مقعد والشيخ حسن قليل جامع محمد هذا وحلا يا هذا دار الصحة يا شفضا جزاكم الله خير daweynta jinka iyo sixirka iyo isha iyo subyaanada weeyaan saadarteed maartay gobollo badan ma soo maray reer Soomaaliland kamida saadarteed bulsho badan ayaan markaa maartay aanu ku soo casharinay oo markaa casharkan aanu ku seedeynay meesha wax loo daweynay qofka sheebaarkuna casharkaas ma lagu sheebaaraya quraanka nasuusta lagu aqriyo aayadka sixirka lagu aqriyo kii jinka kii isha kii subyaanada kii mid kasta waa lagu aqriyaa saadarteed markaa aayadka quraanka iyo maartay casharkii lagu tufo markaas baa qofkii maartay sheebaarka laga qaadaya markaas baa wixii helay jazaakumullahu khayr markaa maartay laga daweynaya oo laga saaraya saadarteed bulsho badan oo hadda halkan imika timi qaar kood joogaan ba imika ay fadhiyaan dhowr iyo 10 sanadood sixirana 17 sanadood muddo iyo in kan badan qaar ilaa haysto qaar jindaan daamiyay qaar sixir daamiyay qaar maartay axwaalaysan axwaashooda fara badan tahay intuba jazaakumullahu way ku dawowday sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah dadkii Ilaahay ku shaafiyay xarunta Daaru Sixa ee magaalada Ceergaabo iyagoo ka hadlaya noloshoodii hore iyo tan haatan waxay yiraahdeen Cabdirashiid Jaamac Axmed aniga oo ah markii ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay baan u mahadnaqayaa marka xigtana waxaan u mahadnaqayaa maxay ahaydtay sheekha oo ay qof walba caafimaadka Ilaahay qof u diiwaan bogta waxaan xanuunsanay muddo dheer oo ah 17 sano baan xanuunsanay maalintii u horeysay oo halkan yimi aan halkan ugu yimi isla maalintii markii uu quraanka ii saaray wixii way iga baxeen ma garanaysa waxa la iga helay sixir maxay ahaydtay afar baa la iga helay dabadeedna aad iyo aad baan u caafimaaday 17 sano waxaan xusuustaa deewaan jiif jiray muddo dheer waxaan xanuuni jiray madaxa rafaad badan baa soo maray dhaqaatiir badan baan maray boosaasaan maray hargeysaan tagay maanta noloshaydu way soo noqotay aad iyo aad bay u soo noqotay waxaan dareemayaa yaraantaydii waxyaabihii aan ma garanaysaa soo maray baan xusuustaa soo maad garan awal lama xusuusan jirin midna markaan meel wax dhigo ma arki jirin waxaan meel dhigo hadda horta waxaan halkaas oo kale dhigaa miiskaas oo kale dhigaa waxay ugu maqanayaan saani ma garanaysaa waxaan kaloo lahaa alowshiyo fara badan oo aan laabi jiray haddaan lacag meel dhigo oo aan bari dambe ma ogta intaan meeshii iska baadhaan xusuusan jiray oo aan iyadiga u socon waxaan keenay 3 hablood oo aan shifooyin hore geeyay oo waxba ka hadlin oo aan ka shakiyay anigu oo 10 jeer quraan la saaray oo dhaqaatiir la geeyay Allah ma hadle wadaadkan maalintii horeysaan u keenay 3diiba waa laga hadlay waana laga saaray imikana way ku jiraan ma hadla waxba kama hadlayaan way iska casharka lagu saydhinayaa Sheekh Xasan Qaliil Jaamac ayaa dad badan sidan oo kale ugu soo daweeyay gobolada dalka Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed